السلام عليكم كسو دواده حجاله بودكاست barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa interviewga iyo qaabka loo diyaariyo su'aalaha ugu badan ama ugu muhiimsan oo la isweydiiyo maxay yihiin qaabkee si aad uga jawaabi kartaa qaabkee isku diyaarin kartaa interviewga intaan la gelin marka ku guda jirtid iyo interviewga ma aragtay su'aalaha aad filan kartid qaabka uga jawaabi doontid ayaan ku soo qaadan doonaa fadlan ila soco saddex qayb ayaan u kala qaadi doonaa qaybta koowaad waxaan uga hadlayaa inta imtixaanka aadan soo fariisanin qolka waxyaabaha laga rabo inaad si samaysid iyo ma aragtay qaabka aad isu soo diyaarinaysid qaybta labaadna waxaan uga hadli doonaa su'aalaha ugu muhiimsan ee la isweydiiyo iyo qaabka looga jawaabo qaybta saddexaadna waxaan ku siini doonaa talooyin guud oo aad ma aragtay markaas u isticmaali kartid inaad diyaar garowgaaga aad ku kobcisid qaybta koowaad ugu horreyn mar haddii fursad aad u heshid in interview lagugu yeero waa inaa marka hore aad sii akhrisaa hay-addaas interview kugu yeertay gaar ahaan programka ama departmentiga kugu yeeray waxa ay qabtaan waxaad soo daabacanaysaa shaqadii markaas aad codsatay waxyaabihii advertkii la soo dhejiyey waxyaabihii looga baahnaayo kale marka waxaad ka akhrisanaysaa qofka la qaadan doono nasiibkaaga hadduu adiga noqdo shaqooyinka markaas loo diri doono badanaa waa lagu soo qoraa xaysiimada marka shaqada la soo dhajiyo shaqaalaha la doonayo noocu yahay waxa laga rabay shaqada uu qaban doonaba meesha ku cad yihiin marka waa inaad soo daabacataa mid aad dul istaagtaa marka qodob marka hadhow marka waxay ka caawinaysaa su'aalaha marka lagu weydiiyo jawaabaha bixinaysid inaad ku dabaqdid waxaa jiro program kasto ama department kasto hay'ad kasto language gooni isticmaalaan qaab ay u hadlaan waxyaabaha laga hadlayo barnaamijka markaas qofka la doonayo inuu ka shaqeeyo luqad u gaara jirto inaad si fahantid luqadahaas iyo waxyaabaha maaragtay qofka hadhow imtixaanka ereyada soo tuuraysid inay noqdaan ereye ay dadkaas marka imtixaanka ka qaadaya isla fahansantihiin oo barnaamijka marka ka shaqeyn doontid waxaa kaloo samaysaa marka imtixaanka intaad soo aadin kasii fikir hay-addaas dress code may leedahay qaabkee ma aragtay shaqadu ma shaqo oo formal ahaa ma shaqo informal ahaa labiskaaga iyo qaabka ma aragtay qolka usoo fariisan doonta imtixaanka waa inaad kasii fikirtaa oo labis markaas formal ah oo ku habboon inaad ma aragtay la soo fariisatid waad iska fahmi kartaa qodobkan kuma dheeraanayo haddii aad labis oo ciyaalka xaafadda meesha la soo fariisatid waxaa isla markaaba markaas laga sawiranayaa in maaragtay aadan ahayn qof u diyaarsan shaqada la rabo in uu qabto waxa kale muhiim ah inaad on time imaatid waqtiga imtixaanka ama interviewga lagu yeeray in imaatid on time micnaheedu ma aha in aad imaatid saacadda dhidid markay tahay waqtiga loogu talagalay haday tahay 3 saac subaxnimo 3 saac inaad taagnaatid micnaheedu ma aha waa inaad 15 daqiiqo oo yaraan ka hor ka soo hormartid asii fariisatid meesha lagu sii arko aad markaas psychologically xitaa maskaxdaada waxaad u sii diyaarinaysaa interviewgii iyo qolkii aad ku jirtay iyo waxaad ma aragtay sii baranaysaa environmentigii meesha marka lagaaga qaadayo imtixaanka waxyaabo iska basiga jira laakiin muhiim ah in aad dhol cadaysid aad marka qolka soo gashid asalaantid dadka ma aragtay imtixaanka qaadayo qaab adigoo ma aragtay posture-kaaga iyo qaabka u salaamaysid iyo qaabka handshake u sameynaysid iyo inay tahay qaab qiyaasan oo aan ahayn gabgab oo aan ahayn qaab degan oo macnaha dansan labadaba mid dhexdhexaada oo ma aragtay confidence ku jirto oo kalsooni iyo ma aragtay laga dareemayo kartidaada su'aalaha marka ugu muhiimsan qaybta labaad badanaa la isweydiiyo hay'adaha waaweyn caalamiga ah ay dadku ku qiimeeyaan qofka ay qaadanayaan waxaa la dhahaa competency based interview ama competency based questions waa waraysi qaas ah su'aalo la xiriira qofka khibradiisa lagu wareysanayo ama laga rabo inuu tusaalooyin dhab ah oo la xiriira shaqada uu soo qabtay tanna la xiriirto uu hadda rabo inuu qabto ama loo imtixaanka looga qaadayo inuu tusaale ka bixiyo marka waxaa la doonayaa in qofkan la ogaado shaqooyinka horaan uu soo qabtay markuu shaqadaas ku dhex jiray qaabka uu u soo qabtay caqabadihii qabsaday siduu uga jawaabay iyo siduu ma aragtay uga baxsaday waxyaabihii markaas uu la kulmay tusaalooyinkaas marka qaab looga jawaabaa jiro su'aalaha noocaas ah waxaa jira standard la isticmaalo oo la dhaho STAR waxaana loo soo gaabiyey situation ama task iyo action and result marka waxa weeyaan
marka hore su'aasha marka lagu weydiiyo in aad marka hore qeexdid xaaladda markaas aad ku jirta maxay ahayd tusaale ahaan waxaa lagu dhahay xilli caqabad ama dhibaato shaqaalaha dhexdiisa ka dhex qabsaday ama barnaamijka ka shaqeynaysay dadka la shaqeynaysay ka qabsaday noo sheeg qaabka khilaafkaad u xalli khilaafku muxuu ahaa iyo qaabka u xallisay marka number 1 waxaan rabaa marka inaad contextigi aad sharaxdid markaas maxay ahayd maxaa ka shaqeynaysay adigu markaas roolkaagu muxuu ahaa maxaa ma aragtay aad u xil saarneed waa inaad markaas sharaxdid si kooban wuxuu ahaa waxa adiga u xil saarneed xilligu wuxuu ahaa barnaamijka marka aad ka shaqeynaysay wuxuu ahaa number 2 caqabadii waxay ahayd barnaamijkii adiga markaas adiga ku quseeyay markaas sheegtid waxaad sheegaysaa marka qaabka uga baxsatay oo ah action maxaad samaysay xaaladii baa qeexday waad u sheegtay then waxa laga rabaa inaad u sheegtid markaas qaabka adiga u wajahday maxaa qabatay qaabkee u xallisay barnaamijkaas then waxa ku xijinaysaa result marka natiijadii maxay ahayd marka maxaa ka dhalatay maxaa ka dhashay wixii aad qabatay tusaale ahaan khilaaf baa dhacay waad xallisay waxaad maaragtay isticmaashay policy idin gaar ahaa oo hay'adaas markaas oo loogu talagalay in khilaafaadka loo xaliyo ama khilaafaadka gudaha hay'adda dhexdeeda shaqaalaha ha noqdo ama khilaaf banaanka la xiriira dadka la shaqeynaysid ama dadka aad u shaqeynaysid ha noqoto marka waxay rabaan qofkan inay arkaan qaabka u wajahday waxayna markaa tusinaysaa hadday dhacdo shaqadan adiga lagu igman doono ama haddaad ku guuleysatid in khilaafkaas oo kale hadduu dhaco aad ka baxsan kartid su'aalahan marka waxay la xiriiri karaan dhowr qaybood oo kala duwan tusaale ahaan waxaa mar laga fiirinayaa problem solving kaaga qaabkee khilaafaadka ama dhibaatada markay dhacdo qaabkee u xallisaa su'aal noocaas oo kale lagu weydiinaya 4 qof oo kale ka qaadis interviewga qofkan waxa laga yaabaa inuu ku weydiiyo su'aal la xiriirto xirfadaada qaabka barnaamijka problemka u xallin kartid qofkan kale decision making uu ku weydiinaya su'aal la xiriirto qaabka aad go'aamada u qaadatid qofka saddexaad laga yaabaa inuu kugu soo tuuro su'aal kale oo ah competency based oo ah teamwork qaabka aad shaqaalaha teamkaaga la shaqeysid okay marka waxaan u gudbaynaa qaybta saddexaad oo ah talooyin guud oo aan isleeyahay haddii aad maaragtay qaadatid way ku anfacaysaa imtixaanka interviewga markaad diyaarinaysidna waa ku guuleysan doontaa haddii eeba idmo kow waa in marka aad imtixaanka ku jirtid ama wareysiga interviewga laga qaadayo isdejisid inaad si degdeg ah oo cabsi ama maaragtay adoo nervous ah aad uga jawaabtid ma aha waa ina posture-kaaga xataa qaabka aad u fadhidid inay noqon mid saa iskugu dhacsan iyo mid saa u waxsan dhaxdhaxaad ina u fariisatid qofka aad maaragtay la hadlaysidna waa ina eye contact la yeelatid markaan ku leeyahay eye contact la yeelo indhihiisa qofka fiirisi communication-kiina uu noqdo mid maaragtay wanaagsan ama heer sare ah micnaheeda ma ina qofka indhaha ku gubtid waa ina si yar oo soft ah u fiirisid oo la dareemi karo markaas communication-ka dhex maraayo inuu yahay mid maaragtay wanaagsan sida hadda aan sheegay su'aasha lagu weydiiyay kaliya ku ekow maxaa yeelay markaad gashid sheeko kale oo dheer number 1 waxay cadeynaysaa inaad maaragtay su'aasha lagu weydiiyay ka jawaabino meel kale aadaysid number 2 laga yaabo inay bad kale kugu furto oo aadan maaragtay u soo diyaar garoobin waxyaabo waxaa jira oo muhiim ah oo dadku qaarna is dhahaan ay ka cabsadaan waa in haddii qofka imtixaanka qaadayo su'aasha uu ku weydiiyo aad fahmi weydid ama codkiisa hataa uu hoos u dhigo ama su'aasha ay noqoto mid oo complex ah in waxa laga rabaa aad dhahdisi geesinimo leh iga raali noqo su'aasha ma fahmin igu soo celi taasaa laga yaabaa inaad point ku heshid oo waxay tusinaysaa namba in maaragtay qof interest u haayo wixii ay tahay number 2 waxay ku tusinaysaa qof maaragtay confidence leh oo wixii barnaamijka xataa shaqada haddii loo dhiibo xitaa inuu ka baxsan karo ugu dambeyn su'aalihii way dhamaadeen qof walba wuxuu kaaga mahad celinayaa waqtigaagii waxaana maaragtay lagu sheegayaa in imtixaankii ama su'aalihii dhamaadeen fursadna waxaa lagu siinayaa inaad su'aal ama aad comment qabtid inaad markaas ka dhiibatid meesha waxaan rajeynayaa insha Allah interviewga aad gashay inaad ku guuleysatid sidoo kale waxaan rajeynayaa in maaragtay ay ku anfaceen qodobadii aan ka soo qaadanay haddii jiraan waxyaabo kale oo aad doonaysid qodobo gooni ah inaan faahfaahin dheeraada ka bixiyo commentiga igu soo qor si toosana emailkayga waad igu soo diri kartaa fariin inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh